ma tahay qof doonaya inuu bedelo noloshiisa uu ka tago nolosha xumaatada badan ee uu samaysto nolol qurux badan ku salaysanna xariggii Eebbe iyo kitaabkiisa munasalka ah iyo sunnada nebiga. kow wanaaji xariggeeda ka dhexeeya adiga iyo Allihii ku untay oo qaado wixii walba oo lagu faray oo ka har wixii lagaa reebay oo ku dhaqan sunnada nebigeena sallallahu calayhi wasallam oo saaxiib ka dhigo weliba saaxiibka kugu dhow qowlka Eebbe oo mar walba akhri kitaabkeena munasalka ah si qulubtaadu ay noqoto mid nadiif ah. sidoo kale ka fogow saaxiibkaagii xumaa. sidoo kale ha tegin goobihii xumaa ee aad tegi jirtay oo ha xiriirinin asxaabtaada xumayd oo noqo qof mar walba wanaagga raadiya, taga meelaha wanaagga lagu haya, masaajidka ka xaadira, mar walba jamaacada kowka ah. ha noqonin qof dib u laabta oo naftiisa ka adkaan waaya. naftaadu ka adkaaw inta aysan iyadu kaa adkaanin. ku dadaal mar waliba oo xoogga saar inaad la dagaalanto cadowgaaga. cadowgaasuna maaha mid aad adigu arki karto, waa mid alwaakis aad ka adag tahay, waana shaydaan. waa inaad la dagaalantaa, weliba aad si adag ula dagaalantaa. yuusan isku dayin nafsadaadu inuu kugu maamulo. ha israacraacsiinin dhaldhalaalka adduunyada. waa mid kooban, waa mid aad maanta ka tegaysid, waa mid aad u timid. adugu waxaad tahay qof safar. ka sii qaado sahaydaada, laakiin sahaydu ha ahaato midda uu Alla sheegay, rasuulkeena nagu sheegay, diintuna ayna farayso, aysan ahaan sahayda shaydaanku iyo ibliisku ay rabaan. aad iyo aad u mahadsantahay daawashadaada. fadlan hanaga hilmaamay inaad subscribe noo saartid channelka.